Assalaamu calaykum soo dhawaada dhalinyaro caawa waxaa halkan ku qaadanaynaa casharadeenii ka mid ah oo ah barashada forex. Okay, casharka lixaad ayaan caawa halkan ku qaadanaynaa haddii ay fikra noqdo oo ku saabsan direction of the market jihada suuqa. cashar ku saabsan ayaan qaadanaynaa insha Allah. Directions waan dhihi karnaa waa jihooyinka suuqa oo kale waan dhihi karnaa. Marka suuqa hal jiha ma lahan, waa laba jiha ayuu leeyahay iyo mid rangin ah ama kula laabasha. Okay, marka direction of the market ayaan dhahnay. Xaleena marka halkan direction of the market waa jihada suuqa uu u socdo. Okay, direction of the market waa jihada suuqa uu u socdo. Types of direction of the market. Okay, types of direction of the market. Direction market leedahay of the market ka dhigo. Okay, saddex ayuu leeyahay marka saddex jiha ayuu leeyahay: uptrend, downtrend iyo ranging. saddexdaas ayuu leeyahay. Uptrend maxaan dhahaynaa marka waa suuqa kor u socda. Okay, higher high, higher low, higher high, higher low sameysto suuqa jihadaas korkaas ugu socda waaye. Downtrend maxaan dhahaynaa iyadana downtrend waxaan dhahaynaa suuqa jihada hoos socdo. Higher low, lower low, higher low, lower low suuqa saan ku socday waxaan dhahaynaa downtrend. Ranging maxaan dhahaynaa marka ranging waxaan dhahaynaa suuq hal meel kula laabanayo. Okay, tusaale saan oo kale suuqa marka halaha muu dhaafayo halahan way kula laabanayo. Trade line ayuu kala ku samaysan. Trade line kama dhexbaxayo, trade line-ka ayuu kori hoosba ka koraya. Okay, suuqan inta badan lama trade gareeyo oo ranging-ka ah. dad dhif ayaa trade gareeyo oo kori hoos ka qaata. Tusaale markuu halkaas imaado hoos ay u qaataan, markuu halkaas imaadana kor ay u qaataan. Okay, marka taas oo kale badana halis waaye. waxaa kugu dhici karta suuq adoo inta ka soo qaadato oo kale marka inta joogta aad ka baxday oo down aad soo gasho kale down marka inta ka galaysay oo kugu sameyn karo marka xoogo inuu ku soo socdo kadibna uu kugu jabsado hal mar oo jiha kale kugu aado ay dhici karto. marka inta badan lagama trade gareeyo, dad dhif ayaa isticmaalo ka dhex qaraabta meeshaas oo skillkooda iyagana ka dhigtay. Downtrend iyo uptrend iyo ranging saddexdaas ayaa la kala dhahaa marka. Okay, haddii aan u duubno marka uptrend waa suuqa kor u socda ayaa lagu dhahay, waa suuqa kor u socda. Uptrend comes from uptrend-ka wuxuu ka imaaday magacaas uptrend wuxuu ka imaaday up oo kor ah, trend oo ah suuqa. labadooda marka la isku geeyay ayaa waxaa la isku dhahaa marka uptrend. Uptrend marka la isku qabtay marka saas ayuu wuxuu ku noqday suuq kor u socda magaciisa uptrend. Janiska aan ka raadinayno waa buy oo keliya. Okay, janiska aan ka raadinayno waa buy oo keliya, suuqa kor ayuu isugu socdaa. Okay, fursad sell ah noogama balaana marka. Okay, dadyo qaar waxaa jira marka soo laabashadaas yar ka faa'iideysto ilaa meelahaas oo kale ugu baxo. Okay, inta badan laakiin suuqaas focuskiisa ama jihada caadiga loo trade gareeyo waa upka marka la joogo. Uptrend waa buy. Okay, uptrendku waxa uu sameeyaa higher high iyo higher low. Higher high iyo higher low hore maan usoo qaadanin, waan qaadan doonaa insha Allah. Higher high, higher low waxa la wax kale maahan suuqa inuu kan midka upka u socdo inuu sameeyo sidaan higher high. Okay, high cusub inuu sameeyo, higher low meelaha in kale kusoo laabto higher low. Okay, higher high cusub inuu sameeyo, higher low, higher high, higher low, higher high. marka kan high-ga waxaan leenahay higher high. Okay, waa higher high. high hore la soo dhaafo waay, macnaha meeshana high kale ku jiray oo la soo dhaafo waay.
okay meeshaas high kale ku jiray waa la soo dhaafay higher high ee la markaa maadaama kor uu soo jabsaday kan waxaa laha soo laabashadan ama rejection kan waxaa loo yaqaanaa higher low okay higher low ayaa loo yaqaanaa higher high maadaama kan korkiisa la jabsado kor loo dhaafay waxaa dhahaynaa higher high ayaan leenahay okay kanna maadaama uusan higher lowgii hore uusan gaarin oo dhaxda kusoo laabtay waxaa la asna higher low okay higher high high-ga high cusub haddii la samaysto waxaa loo yaqaanaa higher high haddii low cusub la samaystana waxaa loo yaqaanaa higher low okay saasoo ku socdaa marka tusaale higher high ugu dambeeyey haddii meeshan uu yahay higher high ugu dambeeyey meeshan haddii uu yahay oo marka higher low meesha aad ka sugaysay oo saan samey maxaa la sameynaa oo meeshan jabsado maxaa la dhahaa asna higher low ayaa la lahaa higher low ayaa la lahaa aan dhehe higher low kan ayuu ahaa maadaama higher lowgii ugu dambeeyey lasoo jabsaday kan waxaan dhehaynaa lower low laba l ayaan dhehaynaa marka lower low ayaan leenahay waa arki doonaa sinagana yaan ka hor dhicin markaa higher high maxaa loo soo gaabay marka higher high waa h tan waxay u taagan tahay higher high hl na waxay u taagan tahay higher low intaas la haysano okay waxaa leenaha markaa uptrend waa suuqan waa suuq buy ah ama kor u socdo suuqa hoos u socda asna aan isla aragno downtrend ayaa lahaa magaciisa downtrend waa suuqa hoos u socdaa lagu dhahay okay downtrend comes from downtrendku waxa uu ka yimaaday down magacan down oo hoose ah trend oo suuqi ah la sugeeya waxaa loo yaqaanaa downtrend okay suuq hoos u socdo ayaan loo yaqaanaa okay downtrendku janiska aan ka raadinayno waa sell oo keliya ama fursadda aan ka raadsanayno waa sell oo keliya aan isla aragno marka downtrendka tusaale suuq kor ka imaaday saan u soo socday okay low wuxuu samaystay lower low okay lower high lower low cusub lower high lower low cusub aan si qurux badan u sawiro hal mar tusaale lower low lower high lower low lower high lower low saana ku soconaa isaga marka okay aan isla aragno marka lower low waa low kan low waay okay low hore u soo jiray ayaa la soo jabsaday okay waxaa loo yaqaana markaa lower low lower high rejectionka kor oo uu sameeyey waxaa loo yaqaanaa lower high ayaa loo yaqaanaa okay maadaama lower lowgii ugu dambeeyey la jabsaday lower low cusub la sameeyey isna waxaan ku magacaabeynaa laba l ama lower low ayaan ku magacaabeynaa okay higher lower high ayaan leenahay kana lower high ayaan leenahay lower high okay maadaama lower high ugu dambeeyey aan la jabsanin lower high lower low lowgii ugu dambeeyey waa la jabsaday lower low ayaan leenahay kana waa lower high okay saas ayuu ku socdaa marka kan waa la jabsaday lower low cusub ayaa la samaystay lower low aan cusub isagoo joogo meesha aad ka sugaysay lower high oo meelaha in laga laabta aad ka sugaysay wuxuu sameeyey tusaale lower high-gii dambe ugu dambeeyey ayuu jabsaday marka lower high-gii ugu dambeeyey ayuu jabsaday maxaan u bixinaynaa marka higher high wuxuu samaystay high cusub waxaan leenahay marka higher high wuxuu samayn doonaa higher low ayuu sameynaa higher high saas way ku soconaa marka okay suuqa uptrendka ama downtrendka sidaas ayuu ku soconayaa okay lower low waa kana lower low ll ayaa loo soo gaabiyey lower high oo ah lower high oo ah lh okay lower high waxaa loo soo gaabiyey lh lower lowna waxaa loo soo gaabiyey ll okay waxaa filantaas inaan isla fahnay
haddii aan kasii gudubnay slide-kan slide-ka xiga aan usii gudubno ranging waa kana ranging waa suuq rafasho ku jiro waayo okay suuq rafasho ku jiro ama labo meel isla eg ah ku dhex socda okay ranginku waa suuqa marka uu rafasho ku jiro okay suuqu marka uu rafasho ku jiro ee waxaa loo yaqaanaa ranging rangingka laba qaab ayaa rangingka laba qaab ayaa lacag loogu sameeyaa okay waa kor iyo hoos waa sida aan ku sheegay dadyo qaar ayaa adeegsado waa dhifi qaliil inta looma badno okay haddii time frame-yada waaweyn sida 4 hour iyo weekly daily oo kale ay yihiin rangingkooda waa laga faa'iideysan karaa adigoo isticmaalaya time frame-yada yaryar laakiin rangingka haddii uu yahay time frame-yada yaryar oo kor iyo hoos oo kula laabanayo inta badan ka faa'iideysigiisu wuu xun yahay oo suuqa wuxuu inta badan saaciidaa jihada time frame-ka weyn okay jihada time frame-ka weyn haddii uu saxan yahay jihada time frame-ka yar waa la khilaafi karaa rangingkaas oo kale waa la iska ilaaliya laakiin 4 hour iyo weekly kuwaas haday yihiin waa laga faa'iideysan karaa okay waa ka marka waxaa laleeyahay kor iyo hoos ayaa loogu faa'iideystaa kor iyo hoos ayaa loogu faa'iideystaa rangingka waa buy iyo sell labadaba waa looga faa'iideystaa okay waana hore waa usoo fahnay ranging sound waaye in suuqa laba meel isla eg ah uu kula laabanayo okay uusan dhaafeynin trade line-ka okay saan oo kale inuu sameeyo trade line haddaan saarano waa kaa okay saas oo kale marka inuu suuqa marka meeshaas uu kula laabado uusan dhaafinba ee waxaa loo yaqaanaa ranging okay marka haddii uu yahay time frame-yada yaryar sida 15 ilaa wixii ka yar ama 30 kusoo dar wixii ka yar inta badan rangingkooda lagama trade garayn karo yacni cabsi weyn ayaa ka jirto oo time frame-yada waaweynka haddii jiha sax ay leeyihiin time frame-yada waaweynka ayaa la fiirsadaa sida 4 hour okay 4 hour ustaad waa ii maqlaa malaynaa okay 4 hour and weekly oo kale ama 1 week 1 day dailyga markaad joogtid 4 hour markaad joogtid waxyaalaas markay ranging hadday ku jiraan suuqooda wuu macyaa markaas okay rangingkooda waa laga faa'iideysan karaa iyagaas laakiin haddii uu yahay 15 minute iyo wixii lamid ah rangingkooda follow up waaye lagama shaqaysan karo fashil waaye waa la iska ilaaliyaa inta badan oo kuwan kale waaweynka inay jiha kale kugu ridaanaya macquule oo khasaaro saas ku ogalo okay haddii kaasaas aan u gudbo slide-ka xiga aan u gudbo market structure okay market structure waa qaab dhismeedka suuqa okay 3 types of market structure waxaa jira markaa 3 nooc oo market structure ah ama qaab dhismeedka suuqa oo u sameysmo okay waa uptrend downtrend okay waa macnaha wixii aan hore usoo qaadanay uptrend oo ah fursad seller waa fursad seller downtrend waa fursad like aan dhehe uptrend waa fursad buy ah waa suuqa jihada kor u socdo waa fursad buy ah downtrend waa fursad sell ah waa suuqa jihada hoose u socdo okay ranging ama sideway ama break two sides intaba waxaa loo yaqaanaa rafashada okay oo trade-ka labada meel uusan dhaafeynin ayaa waxaa loo yaqaanaa ranging trade line-ka markaa saas u dhigtid tusaale trade line markaa saas u dhigtid suuqa inta korna aan ugu bixinin hoosna ugu bixinin ayaa waxaa loo yaqaanaa ranging
sideway ama break two sides. Okay, waxaa la rabaa marka inuu jiha kamid ah uu u baxo. marka saddex nooc ayaa loo kala saaraa market structure-ka ama qaab dhismeedka suuqa. Okay, key level maxaan dhahaynaa marka? Key level maxaan dhahaynaa? suuqa uptrend-ka ah waxaa key level u noqdaa last higher high iyo last higher low. Okay, last higher high ama last higher low ayaa waxaa u noqonayo key level. Okay, key level ama pointyada la xiiseeyo waxaa u noqonaa marka last higher high ama last higher high ugu dambeeyay oo la ansixiyay ama la ixtiraamay. Okay, uptrend-ka haddii saan dhahno higher high waa soomaan high cusub hadduu ixtiraamo. Okay, higher low, higher high. marka key leveliska inta waa tusaale kan oo kale kan key level waa pointyada la xiiseeyo suuqa marna kor ayaa loo celshaa marna hoos ayaa loo celshaa gebi ahaantiiba. Okay, downtrend-kana waa cagsigiisa. downtrend-ka suuqa downtrend-ka ah waxaa key level u ah ama u noqda last lower low iyo last lower high. lower high-gii ugu dambeeyay ee la ansixiyay. Okay, la ansixiyay ama la ixtiraamay. lower low tusaale suuqa saan ayuu ku socday lower low, lower high, lower low, lower high. mar walba marka saan loo sameeyo waa la ixtiraamay ama waa la ansixiyay. lower low-gan inuu lower low sax u yahay waa la ansixiyay, mid cusub ayaa la sameeyay oo lower low ah. saas oo kale marka labadaba saas ay cagsi isugu yihiin. key levelada marka lower low-yada ama lower high-yada waayo. tusaale suuqa uptrend-ka maxaa lagu dhahay higher high-ga. Okay, iyo last higher low-gi intaas ay waxa u ah key level. Okay, key level ama pointyada la xiiseeyo. sidoo kale suuqa downtrend-ka ana lower low-gi ama higher high-gi lower high-gi ugu dambeeyay oo la ansixiyay waxaa loo yaqaanaa key level. waxaa filaa key leveliskan inaan isla fahanay. Okay, labadan ma qaadanayno marka price action typeskan iyo price labadan ma qaadan doono insha Allah. waxaan qaadanaynaa mar kale labadaas mar kale ayaan qaadanaynaa insha Allah inaan idinka sii wareeriyo ma rabo. marka waxaa tusaale idin tusayaa hadda lower low-ga iyo lower high-ga oo charts ah. Okay, suuqan hadda waa JBP USD. JBP USD weeyaan. Okay, waxaa ujeedaan suuqan halahan yar la hadaan tusaale ka soo qaadano. suuqan marna kor ayuu u socday marna hoos ayuu u socday. Okay, tusaale lower wuxuu ka imaaday yani uptrend markuu yahay wuxuu ka imaaday lower low. no waxaan ka wadaa hal mar kaadi. Okay, suuqa marka uptrend uu yahay waxa uu samaystaa higher high iyo higher low. Okay, higher low aan ka soo kac higher high uu samaystay. Okay, meel ayuu jabsaday u fiirsa marka qurxoon laakiin waa isla arki doonaa iyagoo kala qurxoon. Okay, halas isla aragno waa lower high, higher high, lower high. Okay, and higher low aan ka wada higher low, higher high, higher low. marka mar walba meel uu jabsado saan ayuu ku soconaa suuqa. Okay, higher high cusub, higher low, higher high saas ayuu ku socdaa.
okay cagsigiisa suuqan kale hadda soo dhacayo hoos soo socdo weeyaan suuqa kor ayuu joogaa Soomaaliya higher high ayuu joogaa wuxuu soo jabsaday marka meeshan wuxuu sameystay lower low okay lower low markuu meeshan soo jabsaday wuxuu sameystay lower low okay lower high ayuu sameystay lower low suuqaas marka hoos ayuu soo socdaa okay hadana waxa u jeedaa marka lower low cusub uu sameystay halkan ayuu soo jabsaday okay lower high lower low saas ayuu ku socdaa marka suuqa saas ayuu ku soconayaa ranging hadda isla aragnasna suuq ranging aan isla raadinayna 4 hour oo kale waa laga trade gareyn karaa dhaanay 15 minutes oo kale tagayna rangingkiisa meelahana waxaan ka raadinaynaa suuq ranging ah ama meel lagu laabtay okay tusaale waa kana ma dheera suuqa dil dhax galo wax lama weynaayo okay halahan yar la inoo soo qabo bis suuqan halahan yar la inoo soo qabo waxa u jeedna suuqan hadda waxa u jeedna in suuqan maanta dhan uu sameysanayo kor iyo hoos oo kula laabanayo trend line-kan gudihiisa ama boxkan aan sameystay gudihiisa uusan kor iyo hoos uusan u dhaafaynin okay suuqan oo kale marka lagama trade gareyn karo inta badan haddii uusan ahayn higher time frame-ka lower time frame-yada inta badan waa rafaad okay haddii aad dhahay tusaale suuqan kor iyo hoos u tumaa tusaale haddaad dhahay inta waa ka sell gareynaa hadduu inta imaado waa buy gareynaa okay hadduu inta tago waa sell gareynaa waa buy gareynaa okay marka adi waxaa laga yaabaa mar ahayn in lagu gaado oo jiha kale lagula aado jiha aad rabti maahine jiha kale in lagula aado ayaa iska dhici karto that's why loo dhahayo marka suuqa rangingka ah ha la iska dhaafo oo yaa la trade gareynin waxaa filaa saaxiibada in casharkan si wacan loo fahmay haddii wax su'aal ay jiraan okay haddii wax su'aal ay jiraan okay halkan waxaa inooga dhamaaday waxaa filaya in wax su'aal aysan jirin halkan waxaa inooga dhamaaday basigeena ama casharkii basiga aan soo qaadanaynay ayaa halkan inoogu dhamaaday caaba casharkii ugu dambeeyay waa casharkii 6aad ayuu ahaa waxaan gali doonaa haddii eebe ka raali noqdo intermediate-ka ayaan bilaabi doonaa insha allah isna waa soo ka koobi doonaa oo casharo badan kama dhigi doono ilaa isna sigiisoo kale emailahas aan kusoo koobaa rajeynaa isku soo celcelisho inta ugu muhiimsan aan soo qaado haddii ay kasii badatona insha allah inaysan 10 cashar aysan dhaafin insha allah kadibna waxaan usii gudbi doonaa advancedkana istaraatiijiyadeena focuska aan saari doono waxay noqon doontaa ICT okay istaraatiijiyadaas ayaan baran doonaa haddii eebe ka raali noqdo insha allah marka waxaan idin leeyahay saaxiibayaal oo mar walbana idin xasuusinayaa oo casharkan aan ku gunaanidayaa joogteyn iyo ku celcelin faham qoto dheer ayaad ka heli doontaan insha allah marka isku daya casharkan inaad si fiican aad ugu celisaan ama casharada dhan inaad si fiican ugu celisaan haddii aad rabtaan suuqan forex inaad ka mir dhalisaan insha allah waan ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad ii dhageysteen insha allah waxaan idin rajeynayaa inaad si wacan aad u fahantaan casharkan haddii wax su'aal ay soo laabtaanna insha allah casharka dambe nusu keenkeena amase luuqa igala soo xiriira insha allah waxaan idin rajeynayaa nabadgelyo guul wacan waan idin rajeynaya insha allah maca salaama